kastay joogtana aad baan u salaamayaa muhiimadan caawa fiidiyowgan u duubaya waxa weeyaan in rag baa jira ku ceesha barabogandada aflagaadada dumarka iyo ceebaha iyo cayaha iyagoo dumar la dhashay oy dhaleen oo waxaan ku yiri ay qabaan oy la dhasheen oy dhali doonaan ayaa rag baa jira ku ceesho ku tamariya aflagaadada iyo barabogandada dumarka ragaasan caawa la hadlayaa waxa jirtay saakun baan ku arkay facebooka inan yaroo aad u caataa oo aragiisuba aanu run sheegayn qof baaba wax kaa soo sheega oo hadalkiisa markaad ka yaabto codkarnimadiisa ayaaba tiraahdaa waa nina iska daawaa way ka dhacday ama saasaabay ka noqotay laakiin midaad moodo inay gaajo ku raagtayo codkiisuba codkarna aan ahayn oo hadalkiisuba aanu run sheegayn ayaa wuxuu yiri waxaan ku maqnaayoon xogogaal oo arrin xogogaal aan idin wada in badan aan soo baaray xamda kuwiino intuu nin fankii ka saaray atri business baan furanayaa sidan iyo sidan iyo sida blue bala ayaan ku maqnaayoon arrinkii baan soo waday horta kaatibaatay baan ku leeyay ceebaha dumarka iyo waxaan ku yiri propagandada u arsaaq doontay intay dadka ilaahay ya arsaaq ya fataax leeyiin ayaad adigu been iyo kaatibnimo iyo wax maalinta qiyaamo la soo dambeyn doonad barta u furatay qalbiga inaad cayr ka tahay baan ku sheegaya adiga iyo nooca kula midkaaba nooca adiga iyo nooca kula midkaaba la kula midka arsaaqka doona nolol maalmeedkoodii iyo ceeshkoodii arsaaqdooduba daa ay ku xidhantay halkaa intay soo fadhiisteen youtube yar intay samaysteen ka raadinaya nolol maalmeedkii cay iyo aflagaado iyo been abuur hablo hore badan baa la wadwaday miidiyaha oo adiga iyo inta noocaagaas hadda ilmo xalaal ma odhan karo waa ilmo xalaal because qof hooyo dhasho gabadhi dhashay oo ilmo xalaala halkaa intuu soo fadhiisto been abuur intuu sameeyo qof bini aadana ceebishiisa iyo propagandadiisa ma wadwado ma garatay manaan jeclayn inaan ka soo hadlo si kastoo u wada jireen ama aniga ay igala hadli jireen ama waxay doonaha soo qoraan kamaan jawaabi jirin laakiin waxaan caawa uga soo hadlay uga soo jawaabay Soomaalidu waxa la yidhi dhakaliyay leedo waxbay ku maqashaa qaar badan baa isaaran doona wax xaqiiqo waa run waxaan ku leeyahay qalbigaad fakhri ka tay qalbigaad aad fakhri uga tay ilaahay arsaaq dhaanta beenaha adiga samaynaysa intaad halkaa kamarad hawl u gashay oo kamarada u soo qaadatay oo ummad dhan oo ku daawanaysa aad been u sheegayso isku qajil baan ka oran lahaa oo amal intan dhaama raxmaankan ku weydiinay ilaahay ha ku siiyo marka hore intaad soo hawlayso qof beenaad ka samaynayso oo leeday war xaqiiqa kuwa dhageysanayana waxaan leeyahay ilaahay de wax dhaama haydin siiyo intaad kaatibka halka soo fadhiistay aniga iyo habla badan oo sharaf laba wax ka sheegaya adigana amal alla beenaha iyo de wax la soo dambeyn doono afkan aad buu u fududiyay markaad leedahay qof been abuur ka samaynaysa laakiin maalinu aad u cuslaan doono oo cadeymaheedana aad soo xambaarsanaan doontaan rajeynaya inaynu meel tan ka awood badan aynu ku kulanno markaan waxaan leeyahay haddaad beenaha aad wadaan ka waantoobi weydaan ilma xalaalka lama hadlayaano dad badan oo sharaf laba jiro youtube yele oo siyaabo kale u isticmaalaan laakiin ilma xalaalka anigu lama hadlayo nooca ilma xalaal kuma tilmaami kara anuu yee waxaan la hadlayaa nooca waxa ku shaqaysanaya haddaad ka waantoobi weydaan wallahi waa laydinka shaqayn oo gacan bira ayaan iskaga keen qaban doonaa maalmo horena waxa jiray in la soo galiyay hees aan waqti hore qaadnay oo mala ku saabsanayd xashiishka iyo dawladda hoose iyo adoo arrimo saasa marka oo laga dhigay hees cusub xamda kuwin baa fankii ku soo noqotay sidan anu fanka idinku idimaydaan soo galin idinkana idinkamaan bixin ma garatay umanay baahnayn ee sababtan baan caawa idin raacinaya inaan ka yare meesha ka soo hadaaqayo haddaan ka baxayna idinkamaan bixin haddaan soo galana idin ma soo noqon baan leeyahay
marka mana garanayo sababta loo soo dhigay wallaahi anuu kooxdii aan ka tirsanaa inankii uu musicianka ahaa iyo intii dee aan isku bahda fanka aan wadahayn waan ogeysay intii heesahayga haysay heestan waqti xaadirka lama soo dhigin YouTube lama soo gelin Axmed Weli waan u sheego wixii heesayga haysay dhulka dhig badankood habla kalaaba qaaday oo heesaha qaaday marka de ma garanayo reasonkii loo soo dhigayo ama loo soo gelinayo ma ku xumayn ba maxay ka tay heesa kale oo ama xashiishka ama de wacyi gelin nadaafada lama waayino fanaanin way buuxaan igana cod macaan igana qurux badan ma garateen marka waxaan leenahay iyagana aynu kala xishoon ixtiraam iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo aynu soo haynaa dad walaalada iyo baatiin dad ixtiraam iyo karaamo ku kala tagay baynay oon marnaba ceed ku farxaya iyo kii ku fanka dibadaan ka ahay qowlkaadigu ogeydeen wixii idinkaan afkayga idinka sheegay ayaan isku ognahay aad baan idin salaamaya aad baan inta i jecel iyo inta i neceb baan halkan uga salaamaya caawa anigu waan idin jecelahay qalbi saliimaan idin hayaa laakiin midkaas oo kale waxay noo ballanay inaan isku qabano dadka nooca u dhaqmaaya inaad idinkuna fiirsataan maaha wanaagiinaan jecelnay ixtiraamkiinaan idin haynaa ma garateen iga raalahaadaan idin leeyahay haddaan caawa anigoo yara kacsan idin soo galay marka waxaynu leeyahay dadkaasi ka waantoobaan arrimaha noocaasa sharaf dhacaa ay dadka ku xagxaganayaan waxba nagu yeeli maayeen laakiin way ku xagxaganayaan dadka oo ilaahay baa uga dhigay ilaahay ma odhan karno ilaahay waxun shaqo kuma lehe shaydaan ayaa dirsaday oo iliyuun dadkan cayda dadka aflagaadada dadka waxaasaad lacag ku helaysaan inaad caan ku noqotaan caannimadiina halkii wax wanaagsan laga raadin lahaa ayuun baaba waxun laga raadinayaa wallaahi bilaahi tallaahi waa aakhiru zamaan waa xilligii la sheegay weeyaan baynu ku jirnaa ilaahay dadka xumaanta samaynaya waxaan kuli waxaa dadka been abuurkaa soo samaynayay inta la midkaa iyo inta la macaaba raxmaankaynu ka hoos galnay iyagana ilaahay farash khayr qaba ha u furo